kugu dhacday in qof cod aad iyo aad u macaan sheekh aad u cod macaan oo qur-aanka kariimka akhrinaya in aad tiraahda ii soo dir malugu yareeyo inuu soo diri karo bas mashquulanahay telefoonka waan isticmaalayaa waqti kuma hayo iyo wax lamid ah haddii arrintaas kugu dhacday maanta waad ka marmaysaa barnaamijkan waxaan kaa codsanaya inaad subscribe like shirta aadan ka baqaynin okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما هو وجهتنا وسلامتي سلام كدي ما طبعا لي برنامج أد مهمك أو إن القرآن الكريم كشيخ كستا أوف أستا أو أتكيسة تعيشها هاي كتيرة إنترنت كأتلي الكتير أو تد waxaan ku tiri karo boqolaal sidee haddaba ayaan ku heli karaa in intaasoo culimo ah codkooda mid alla midkaan u baahdo si degdegan ku hor kuna darso oo ah waxa aad kaga marmaysaa amaba laga yaabaa hadda dadka qaar inay jecel yihiin markasta inay dhegaystaan amaba daawadaan qur-aanka kariimka dhagahoodana ugu raaxeeyaan laakiin ay taasi ku kalifto in qarash uu kaga buuxo internetka ay ku daawanayaan maanta waxaad ka marmaysaa in aad ku daawatid ama ku dhegaysatid internet oo waxaan ku keenay mowqic ama wiib kuu sahlaya in aad si fudud ugu soo degsatid qur-aanka kariimka sheekh alla sheekhaas yeeshahay ee aad codkiisa ku raaxaysatid inaad dhegaysato xilligaad shaqaynaysid xilligaad mashquul kale iska tahay inaad sameecada iska gashatid mar kasta inaad iska dhegaysatid xitaa aduu internet hadka teleefonkaagu kugu jirin hada sida daraaddeed barnaamijkan ayaan bilaabayahay ila socod wanaagsan saad arkaysanba waxaad tegaynaa qaybta shurumka ama adigaba barnaamij kasta ee wax lagu baarto ee teleefonkaaga ku jiro kadibna qaybta baarista ayaa waxaad ku qoraysaa sida hadda aan ku qorayo mp3 quraan ayaa qoraysaa kadibna sidan ayaa kuu soo baxaysa qaybtan ayaad taabanaysaa oo aabta ku calaamadinayo halkaas ayaad taabanaysaa jak markaad gudaha u siisid ayaad webkii ama mowqicii ayaad gudaha u gashay saa idiin muuqataba halkan qaybtan baxth ay ku qoran tahay bism alqaari qaybtan waa riwaayaadka halkan hoosena waxaa kaaga muuqda culummada ama dadka quraacda ee qur-aanka akhriya inta badan ee codadkooda la diiwaangeliyay أحمد عجمي أحمد الحواشي أحمد برابلسي أحمد السويلمي أحمد بن علي العجمي أحمد خليل ay badan yihiin oo waxaa ku jirta culamo aad iyo aad u badan oo qur-aanka akhrinaysa saad u jeedaanba qaybtanna haddaad doontid magacaa si gaar ah u baaran kartaa qaybtan waa qaybta riwaayaadka oo ama qaabka qur-aanka loo akhrinayo ayaa dooranaysaa xafs عن عاصم ورش عن نافع ويبدين رواياتك كاد هذا وجه شهي هي تكتور نيسا صالحنا نجي حفص عن عاصم أيام قدور حتى كذبنا راضا متكمد أيام كسي دورن دونا تصالحان بدر التركي أيام كدورنا بدر التركي أيام كدورتي تصالحان وحام idin tusaya qaabka soo degsanaysan iyo qaabka uu ka dooranaysan iyo qofka aad jeceshihiin meeshaad ka helayso marka magacaas oo markiisid halkan suurat al-faatiha raqam waaxid ay ku jirtaa waa ka halkaas ayaad taabanaysaa si aad u shaqaysiiso ama codka u tijaabisid marka qaybtaas ayaad dhegsanaysaa codka caadiga ayaad u dhegaysan kartaa haddii aadan in soo dejiso u baahanin wey haddii aad inaad soo degsato u baahan tahayna waxaad samaynaysaa qaybtan saddexda dhibcood ah ayaad taabanaysaa codkay si aan حقوق ملكية اللي يقول صار وان قاعدين قيبا نعرف هاي صدق حد بوضع حتى يعني دين على مدن بونس قيبتا صنعت هالكا صدق حد بوضع كبير هي تاكسي نيسا هذا تاكسي سوى حكو صوب بحيث قيبتا تاندن قيبتا فلاتا هوس وجيتا هي سيتا بنيسا وكا اسلام ركا تاكسي سبوري يوكا صدقيا وكا وصول دقيقة هذا سورة الفاتحة ويسود دقيقة البقسي كوزو دقيقة كوزو دقيقة هذا كوين كوزو جيدة اللي جنبه ويدا ماتي وكا ويدا ماتي سيداس أي قرآن وصول دقيقة كتا لكن waxaan idin xusuusinayaa in suuradaas ay u kala waaweyn yihiin ama u kala dhaadheer yihiin ay waqtiga u kala badan yihiin laakiin inay qofka internetkiisa uu fiican yahay suuradda hadda qur-aanka ugu weyn tusaale ahaan suurat al-baqara 10 daqiiqo kuma qaadan doonta ilaahay idinkiisa haddii khadka uu